مرحلة maanta ay Soomaaliya ku sugan tahay waa marxalad adag weey waa marxalad ilaahay isaga qaadir oo keenay laakiin waxaan qabaa waa marxalad haddii midnimo iyo garasho iyo aragti iyo cilmi iyo dulqaad la muujiyo laga gudbi karo iyadoo aan qabo runtii in mararka qaarkood yani ay yihiin madaxda yani loo doorto gobolada ama dawladda federaal kuwa iyagu abuurayaba mashaakilaadka ummadda Soomaaliyeed ama dib u sii dhigaya ama curyaaminaya waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo oo wasaaradihii amniga tihiin waxa maanta ummadda Soomaaliyeed ugu jilicsan tahayna waa amni waxaan qabaa haddaynu isku aragti ka noqono in yani laga guuleysan lahaa nimanka shabaabka la yiraahdo ummadda meel kasta ay joogtaanba waa cadowga binu aadamka weeye ma oran karo Soomaali wixii arkaanba waa dilaya halayaaba inaan maanta arkay article leeyahay ciidamada Mareykanka waxay sheegeen gabigoodaba cadadkoodu inuu yahay ay yiraahdeen waa 4,000 oo qof Almania ciidamada Amsom jooga 22,000 baan maleynaya ciidamada Soomaaliyeedna they almost 18 baa la sheegay laakiin markii ay ka basii kordheen in dhowratan marayaan I don't know laakiin haddana afartaa baad moodaa inay ka adkaan kari laayeen meeshii sababtaan waxaan u arkaa inagaan jaanti isla helin waa maamul goboleedada iyo dawladda federaalkan jaanti isla helin habkii aynu u nimanka wax uga qaban lahayn waxay la tahay shirkiinani meeshii la oran jiray ciidanna uma maqna ceelo uma qodna wasiiradii baa tii ama maamul goboleedada ama dawladda federaalka haatay yani waa in yani heshiiskiina iyo aragtidiinu ay ku salaysnaataa yani sidii nimankan loola dagaalami lahaa oo xilliyeysan wax tusbax dabada ka furan looma baahna